dagaalyahanada Alshabab ayaa weeraray xero ciidamada Soomaaliya ay lahaayeen iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 15 askari waxaa loo maleynayaa inay dhimashadu intaasi ay ka badan tahay dagaalyahanada Alshabab ayaa isticmaalay gaari miinaysan iyo ciidan lugta ah si ay ula wareegaan saldhigan military ee Bariire oo ah magaalo Muqdisho u jirta 25 mayl wariyaha telefishinka BBC-da علي نور سلاد ayaa Muqdisho warkan kala socday waxaanu iiga waramay sida ay wuxu dhaceen wararka naga soo gaaraya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Alshabab ay saaka aroortii hore weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Soomaaliya ay halkaasi ku leeyihiin weerarku waxa uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qarxiyay albaabka hore ee saldhiga kadibna waxa xigay in ay gudaha u galaan isla markaana ay gabi ahaanba la wareegaan saldhiga Alshabab oo hadlay waxa ay sheegeen in ay ciidan tiro badan halkaasi ku laayeen sidoo kale waxa ay sheegeen in ay saanad military oo ciidanku uu halka ku haystay ay gabi ahaanba la wareegeen ila wareedyo aanu la xiriirnay oo ku sugan Bariire iyo kuwa kale oo ku sugan Muqdisho gaar ahaan isbitaalka weyn ee dawladda waxay inoo xaqiijiyeen in tirada ciidamada halkaasi uga dhimatay inta la hubo ilaa hadda ay tahay ilaa 16 askari oo meydadkooda la keenay magaalada Muqdisho wasaaradda gaashaandhigga oo aynu la xiriirnay arinkaasi gabi ahaanba waa ay ka gaabsatay Bariire waxaanu ku xusuusanaa in bishii Agost ee la soo dhaafay ciidamo isgarabsanaya oo kuwa Soomaaliya iyo kuwa Amisom ah ay la wareegeen halkaas iyada oo wax dagaal ah uusan ka dhicin balse ay ka dambeysay in ay ciidamadu halka ku dileen dad shacab ah oo beeraley ah taa oo dhalisay xiisad iyo carab bulsho balse markii dambe dawladdu si aysan shaacin ay u xalisay